magaciisu wuxuu ahaa Santiago. maalintii ayaa sii gabagaba ahayd markii uu yimid isaga oo adhigiisii wata kaniisad qadiima oo meel cidla ah ku taalla oo saqafkeeduna saman hore uu dumay, iyadoo gudaheedana uu ka baxay geed aad u weyni. wuxuuna go'aansaday inuu meeshan u hoydo. wuxuu ka soo gelay adhigiisii albaabkeedii jajabnaa, wuxuuna saaray dhowr loox si uu uga ilaaliyo inay ka baxsadaan oo cararaan habeennimadii. maalin ayaa neef adhi ah ka cararay, waxayna dani ku khasabtay inuu maalin dhan ku bixiyo raadintiisa. dabeed koodhkiisii ayuu dhulka ku fidiyey, wuxuuna ku seexday kitaab uu markaa akhriskiisa dhammaystiray, barkinna uu ka dhigtay. ka hor intuusan sii seexan wuxuu ku fikiray inuu buug badan akhriyo uuna wakhti badan geliyo dhammaystirkooda. wuxuuna ka helayaa barkimooyin badan oo uu ku seexdo habeennimadii. kadib markii uu soo toosay welina uu arkay inay mugdi tahay, ayaa wuxuu ka arkay saqafka sare ee badhdoonsan xidigihii oo weli iftiimaya. wuxuuna naftiisa ku yidhi, runtii waxaan jeclaan lahaa inaan seexdo wakhti dheer. wuxuu hurdadii ku arkay riyo, waxayna ahayd riyadii toddobaadkii hore. mar labaadna ayuu soo toosay ka hor dhammaadkeedii. wuuna kacay, wuxuuna qaatay ushiisii si uu u kiciyo idihiisii oo weli jiifa. wuxuuna arkay in ay jirto awood qariiba oo noloshiisa ku xidhay nolosha idahaas, kuwaas oo isdaba jabacsanayay muddo 2 sano ah isagoo u raadinaya isna biyo iyo baad. wuxuuna isagoo hoos iskula hadlaya naftiisa ku yidhi, runtii waa ay i baratay heer ay taqaano waqtiyadeeda, laakiin xoogaa kadib wuxuu garwaaqsaday inay bilcagsi tahay, oo isagu uu yahay ka bartay iyada iyo waqtiyadeedaba. qaar ka mid ah xayntiisa idaha ah waxay dib ka wahsan jireen inay hore u kacaan, uuna toosin jiray isagoo mid usha ula dul istaagi jiray, welibana isagoo mid walba magaceeda ugu yeedhaya. wuxuuna hadee jeer ku qanacsanaa awoodda ah in xayntiisa idaha ah u leeyihiin inay fahmaan waxa uu u sheegayo. wuxuuna u akhrin jiray qaybo ka mid ah buugaagta uu akhrisanayo, ama wuxuu uga sheekayn jiray kelinimadiisa iyo nolosha baadiyanimada. wuxuuna u sharixi jiray xaaladihii magaalooyinkii uu mar walba mari jiray. si kastaba ha ahaatee, shalay wixii ka horreeyey maankiisa kumuu jirin mawduuc kale marka laga reebo gabadh dhallinyaro ahayd oo ku noolayd magaalada uu ku socdo hadda, taas oo uu gaadhi doono 4 maalmood kadib. wuxuuna booqday keliya hal mar sannadkii la soo dhaafay, waxaana ku noolaa magaalada ganacsada ku haystay dukaan suufka lagu iibiyo. wuxuuna ganacsadahaasi jeclaa in hortiisa idaha dhogorta lagaga xiiro marka uu iibsanayo, isagoo ka baqayay in la khiyaamo. ninkii dhallinyarada ahaa maalinkaas wuxuu adhigiisa u keenay ninkan ganacsadaha ah kadib markii uu soo tilmaamay nin saaxiibkii ahi. wuxuuna ganacsadihii ku yidhi, waxaan u baahanahay inaan iibiyo dhogor. maalinkaasna dukaanka waxaa ka buuxay macaamiil, sidaa darteed ninkii baayac mushtariga ahaa wuxuu ka codsaday ninkii xoolo dhaqatada ahaa inuu sugo ilaa gelinka dambe. wuxuuna fadhiistay dukaanka agtiisa, wuxuuna la soo baxay buug ku jiray boorsadiisa. ma aanan ogayn in adhijirradu ay akhriyi karaan kutubta, waxaa yidhi haweenay agtiisa joogtay. gabadhan dhallinyarada ahi waxay tusaale u ahayd dumarka Andalus ee timaha iyo indhaha madoobaa, dibna kuwa xasuusinaya carabtii waayadii hore furatay Spain. sababtoo ah adhigu waxay og yihiin wax ka badan waxa ku qoran buugaagta, ayuu ku jawaabay adhijirihii dhallinyarada ahaa. waxay wada sheekaysteen in ka badan 2 saacadood, waxayna u sheegtay inuu dhalay ninka ganacsadaha ahi. waxayna ka sheekaysay nolosha magaalada iyo sida ayaamuhu yihiin ee shalay iyo maanta aan xaalkoodu isu beddelin. iyada ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu uga sheekeeyey Andalus iyo waxyaalihii ugu dambeeyey ee uu ku arkay magaalooyinkii uu soo maray. aad ayuuna u faraxsanaa la hadalkeeda, sababtoo ah mar walba kumuu khasbanayn inuu adhigiisa la hadlo. sideed ku baratay akhriska? gabadhii dhallinyarada ahayd ayaa weydiisay.